weligaa ma isweydiisay waa maxay bitcoin ama cryptocurrency waxyaalaha la dhaho ama xagee ka yimaadeen sideeba lacag looga sameeyaa wuxuu waa maxay marka ugu horeysa iyo sida loo isticmaalo haddaad waxaasoo dhan weligaa isweydiin jirtay maanta videoga baan kugu sharaxayaa waa maxay bitcoin meeshuu ka yimi waxyaalahaasoo dhan markaa daawasho wanaagsan horta dhammaantiin aad yaad bayni islaamiya daawashaan ku xidhan waxaa laga soo dhawaada video cusub saaxiibayaal jiin baad nooga baratay saaxiibayaal laakiinse corona soo kale dhex galay meel walba ay xidhan tahay laakiinse bishan wixii ka bilaabmo fiidiyoodii dib baan usoo gelin doonaa hadduu alla ka dhigo dhammaantiinna aad iyo aad baan horta marka hore inii salaamayaa haddaba hadal aan yanaynu ku dheeraynin fiidiyogeena toos u guda gallo fiidiyogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa maxay bitcoin ama xaguu ka yimi sideeba loo isticmaalaa sideeba lacag looga sameeyaa haddaba bitcoin waxaa la dhaho waxaa la sameeyey ku dhawaad adigu 2008 2009 meelahaasa la sameeyey adigu 11 ilaa 12 jir weeye waxani laakiinse waxa weeyaan aalad sida online oo lacag loo sameynayo marka haddaad taqaanin ama forex haddaad maqashay waa waxaasoo kale soo shabahaa laakiinse haddaba anaa kuu sheegay sida bitcoin lacag looga sameeyo laga yaaba dad fiidiyoyaal badan ama english ama carabi ama soomaali xitaa dad ku heshay inaan si toosa lagugu fasirin aad istiraadid wuxuu waa maxay marka ugu horeysa ma garanaysaa because waxaa si aad u isticmaashadooda nagaataa wuxuu yahay bitcoin oo keliya ma jiro waxaa jira waxyaalo badan sida la dhaho ethereum ama cardano ama dogecoin ama waxyaalo badan baa jira oo aad iyo aad bay u badan yihiin waxyaalaha sida bitcoin oo kale laakiinse ka ugu maaragtay ugu magaca dheer ama ugu caansan waxaa la dhahaa bitcoin uguna da-da weyn adigu 2008 2009 meelahaasa la sameeyey laakiinse waa wax online ma garanaysaa aad online ku kala iibsanaysid ma garanaysaa lacagaad kaga samayn kartid sida businesska caadiga oo kale accounti baad furanaysaa ama waxaad accountiga markaad furatid kadibna lacag baad ku shubanaysaa accountiga markaad lacagta ku shubatid waxaad iibsanaysaa wax bitcoin la dhaho iminka bitcoin bay ka hadlaynaa marka wax bitcoin la dhahaad iibsanaysaa waxaa bitcoinka markaad iibsatid maantoo kale ma iibsatay berri oo kale wuu qaaliyoobaya kadibna bitcoinka adiga haysta lacagtaadina way tagta ma garanaysaa bitcoinkii baad kadibna iibinaysaa oo qaaliyoobay kadibna lacag badan baa kuu soo noqonaysa waa sidaa ma garanaysaa haddaba iminka maydaan fahmin laga yaaba waxaan inii sheegay laakiinse anaa iminka toos inay ku fasiraya daawo iminka haddaydaan fahmin ma garanaysaa waxaan soo sheegay oo dhan waxaynu odhanaynaa iminka caagadaasi waa bitcoin ayaynu odhanaynaa ma fahanti caagadda iminka $1 bay joogtaa ogow $1 ayay joogtaa waad soo iibsatay $1 baad ku soo iibsatay jeebkaad gashatay ma fahanti berritoole caagaddii aad $1 ku soo iibsatay qiimaheedu waa $2 ma fahanti maxaad samaynaysaa waad iibinaysaa $2 baa lagu siinayaa qof kale caagaddaadii markaa qaatay garanaysaa markuu qaatay $2 buu siiyey $2 imisa faa'iido kuwa $1 baa faa'iido kuwa ma garanaysaa $1 waa kaad gashatay $1 faa'iido kugu soo noqday ma garanaysaa markaa saasay u shaqaysaa haddaydan mar labaad fahmin aan inii ku celiyo caagaddaas iminka waxaan odhanaynaa waa bitcoin tusaale weeye marka caagadani bitcoin maahe waa tusaale caagadan bitcoin baynu odhanaynaa weeye kadibna qof kaloo waddan kala joogaa raba inuu kaa iibsado ma garanaysaa iminka tusaale weeye ogow wuu kaa iibsaday adoo $1 kusoo iibsaday ayuu $2 baad kaga iibsaadna ma fahantay iminka $1 baad kusoo iibsanaysaa $2 baad ku iibinaysaa ama waxaad kusoo iibsanaysaa $1,000 $1,500 baad ku iibinaysaa $10,000 baad kusoo iibsanaysaa $15,000 baad ku iibinaysaa iminka waad fahanteen baan malaynayaa haddaba sida waxyaalahan oo dhan lacagta looga sameeyo saaxiibayaal waa iska sidaa haddaad rabtaan inaan iniisoo sharsharaxo waxaan inisoo screenshot baan iniisoo qaadayaa iminka ama screen recording baan iniisoo qaadaya si aad halka uga aragtaan markaa bal horta ila daawada aan ini yara fasfasilo horta sheekada halkay ka socotee saaxiibayaal horta waatan maaragta abkii ama websitekan isticmaali jiray waad aragtaan way badan yihiin bitcoin ethereum cardano dogecoin ma garanaysaa aad iyo aad bay u badan yihiin marka iminka waxaan u gudagelaynaa kala dhaho EOS baan tusayaa tusaale ahaan ma garanaysaa iminka waa $4 iyo 78 senti ma garanaysaa ayuu joogaa ma garanaysaa qiimihiisu iminka weeye marka hoos ba iminka qiimuhu soo dhacay waxaan ku tusayaa ma garanaysaa marra siduu kor u kaco marra markuu hoos u dhaco ma garanaysaa sug week baan ku tusayaa iminke adigu 7 cisho ka hor ma garanaysaa qiimo aada u badan buu ku joogay wuxuu ku joogay $9 ma garanaysaa laakiinse iminka hoos buu soo dhacay markuu hoos u soo dhacaad iibsanaysaa markuu kor u kaco uu qiimihiisu qaaliyoobana waad iibinaysaa ma garanaysaa may fahantay waxaan rajeynaya inaad fahanteen waxyaalahan iminka inii yara fasfasirayay ma garanaysaa
laakiinse haddaad tirahdeen videoga maanu fahmin commentiga waxaad kusoo qortaa inaan magaranaysaa practical usoo sameeyo anoo lacagtii ku shubaya anoo iibsanaya anoo soo iibinaya anoo lacagtii kala soo baxaya waxyaalahaas oo dhan haddaa rabtaana waynu tusayaa markaa idinku soo sheegtoon magaranaysaa sida clienta waxaan leeyahay haddaan saaxiib channelka noo subscribe saar haddaad dee magaranaysaa share ama like noo awoodidna noo saar saaxiib dhammaantiina aad iyo aad baa idiin salaamaya